magaalo madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle Jowhar ka soo dhawow adiga iyo wafdiga aad hogaaminayso kula muddo kooban ayaa naga maqneed caasimadda Jowhar oo aan anaga sii joogno waa nabad gadaasheen waxaan leeyahay roob ayaa ka da'ay waa barwaaqa waa bashbash waxa haba yaraatay Jowhar ay maanta ka wanaagsan tahay caasimadda Hirshabeelle ma jirto isla aan intaan joogay bari waxaa jirtay aan weliga dhex marnay soo muxuu ahay biilaan ah shalay ayaa waxaan ku sameynay xaafadaha qaarkood kormeer xogaha waxaa ka jira cabashooyin ah in biibaxa ama fatahaad ay soo socoto inta ugu badan ee dadka ay ka cabanayeen intaas ayaa ugu badan runtii maamulka heer gobol iyo heer degmada aad ayuu muxuu ahay shaqo badan ugu qabtay iyo xubnihii meesha ku haray baarlamaanka iyo wasiiradii warbixinteen inta badan intaas ay muxuu ahay waaweyn anana halkaan aan sii joogno wax dhibaato ma jiraan kullaba waxay warbixin oo kooban adaa noo sheegi doona waxaan ku leeyahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaaw caasimadaadii fariisamahaadii magaalo madaxda Jowhar intaan ka warqabno degmooyinka ku xeeran hadda wax dhibaato kama jiraan waxa guud ee muxuu ahay amaan darada ama dalka jirana yani waxaan ka nahay qaybaan ka nahay oo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dul qaado waxaasi laakiin waxaan ku leeyahay reer Jowhar aad iyo aad fiican yihiin aadan ku soo dhaweynaa waxaan ku faraxsanahay inaad dib ugu soo noqoto caasimadaadii Jowhar